akhrisaad u noqoto gabadh soo jeedasho leh. Ninka khaayinka wuxuu yiraahdaa gabdhaha ku guuleysan waaya jacaylka akhriyeenta badan. Waxaad ku tiraahdaa ninka waxba kama taqaanid gabadha in yar oo muuqaalkeeda kamid ah mooyaane. Markay wax akhrido waxay noqotaa gabadh muuqaal qurux badan. Afkeeda waxa ka soo baxa hadallada ugu wanaagsan uguna quruxda badan. Waxay ku soo jiidataa caqligeeda soo jeeda cidda jeceshahay. Haddii ay aamusan tahay, aamuskeeda waxa ka buuxa xikmado ka turjumaya fariidnimadeeda iyo caqli badnaanteeda. Gabadha kutubta akhrida kama boqdo kelinimada ama inay weydo nin, waayo waxa agteeda ah raggii ugu waaweynaa. Markasta oo ay gabadhu akhrido kitaab, waxa indhaheeda ku dhacaya 100 nin. Sidaa darteed waxay noqotaa mid caqli badan oo uu soo jeedo damiirkeedu ma aha mid guul daraysatay. Waa fariid garasho dheer oo kala saaraysa runta iyo beenta hadalka macaan. waxaad ogaataa boqoradeedii gabadha ugu oohinta dhow dumarka waa ta aan awoodin inay sharaxdo waxa qalbigeeda ku jira. Waxay soo dhadhamisay noocyada dhibaatooyinka, markaas ay noqotay mid u nugul wax kasta, xataa caarada irbada ay wax ku talayso. waa ta jeclaatay mid kasta oo liita, kadibna ka dhigtay nasiibkeedii noocyada murugooyinka ilaa ay noqotay mid aan cabiri karin waxa qalbigeeda ku jira. Jawaabteedana ay ku koobnaatay ilmadeeda. Mar walba gabadha awoodda badani waa ta awoodeeda cid walba tustaa. Qofna aanu awoodin inuu ka ilmaysiiyo. Waxaad noqotaa gabadh qaaliya aan ka ooyin dadka hortooda, gaar ahaan cidda ku xumaysa ama qalbigaaga dhaawacda. taa bedelkeeda dhoolacadee ku sagooti kelmad wanaagsan una rajee nolol qurux badan. Xasuustaas ayaa ku baaqi noqonaysa qalbigooda. Gacmahaaga kor u taag adigoo rajeynaya Allah oo abuuray nin ka wanaagsan ku jecel kuna ilaashada. Mahadsanid.